الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني ميلو بعد جوكتان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا waxay ku saabsan tahay bisha ذي الحجة ama bisha Carafo, qof walba sida uu yaqaano. bisha Carafo ama bisha ذي الحجة waa bishii dadka muslimiinta ay gudanayeen rugni kamid ah arkaanta waaweyn oo islaamka oo ah in beydka Ilaahay subxaanahu wa tacaala loo xajiyo. bisha Carafo waxay kamid tahay afartii bilood ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weyneeyey quraankiisana uu ku lahaa ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana uu yihi minha 4 xurum, afar bilood oo Ilaahay uu karaameeyey, 3 bilood way xiriiraan oo ah bisha dilqicda oo sidataal Soomaalida ay u taqaano, bisha dilxija oo Carafa aan u naqaano, bisha muxaram oo zaka aan u naqaano, iyo bisha rajab ee u dhaxaysa jumaadul aakhir iyo shacbaan u dhaxaysa. waa bil Ilaahay subxaanahu wa tacaala weyneeyey oo sharfay. islaamkuna carabtuna way sharfi jireen islaamka ka horeysay, islaamkuna sharaf iyo qiimo ayuu u kordhiyey. bisha dilxija waxay kamid tahay 3 bilood ahlu cilmigu ay yiraahdeen ashhurul xaj, oo dadku xajku ay aadaan laga soo bilaabo bisha shawaal oo soonfur aan u naqaano, dilqicda oo sidataala iyo dilxija oo carafa. 3 bilood waxaa lagu idlaaqa oo la yiraahdaa ashhurul xaj, oo qofkii meel dheer deganaa uu markuu soo afuro ramadaankii uu dhamaado uu kasoo dhaqaaqayay, ilaa waxa laga yaabaa inuu bilya ka badan uu soo socdo Maka, oo waagaasi ma ayan jirin maxaa la lahayn wasaaisha maanta sahlan ama diyaaradaha ama baabuurta ama basaska ama tareenada ama maraakiibta. marka bishan dilxaja oo ama Carafa oo muslimiintu ay istaagayaan Carafaad oo ay 3 habeen seexanayaan, Mina habeen ay u dhaxayaan Musdalifa oo ay jamaraadka dhagxaantii ay tuurayaan, tintooda ay xiranayaan, xoolahooda ay qalayaan, dawaafka iyo maxaan lahaayay kacbada ay dawaafayaan. waxay dhacdaa bisha dilxija. walidaalika ayaamaha 10 ee ugu horeeya fadli aad iyo aad u weyn ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga wariyey, iyadoo haddana rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay. ilaahay subxaanahu wa tacaala fi suurati alfajri waxa uu ku leeyahay bacda bismi illaahi araxmaani araxiim waalfajri walayaalin cashrin washafci waalwatri walleyli idaa yasri. ahlu cilmigu waxay leeyihiin fajriga uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay waxaa loola jeedaa fajru yowmu naxri, maalinta ciidda ah fajrigeeda ayaa loola jeedaa. qaar ahlu cilmigu waxay yihahdeen waxaa loola jeedaa maalinta 9aad salaada subax muslimiintu markay mina ku dukadaan oo xujayda ayaa ula jeedaaye, kadibna ay u dhaqaaqaan dhinacii carafaad ay u dhaqaaqaan. labaduba 2 maalmood oo aada iyo aada u qiimo badan weye. rabbina subxaanahu wa tacaala inuu ku dhaarto waxay tusinaysaa mudnaanta iyo qiimaha ay leeyihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu walayaalin cashri baan ku dhaartay, habeeno 10 ah. ahlu cilmi waxay 10ka habeen waxaa loola jeedaa 10ka maalmood ee bisha dilxija ugu horeysa ayaa loola jeedaa, ay ahlu cilmigu ay leeyihiin. walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nabiy llaahi ibraahim uu ku yidhi waadin fi nnaasi bilxaji yatuuka rijaala wacalaa kuli daamirin yaatiina min kuli fajin camiiq. ilahay waxa uu ku yihi liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fi ayaamin macluumaat, inay xaadiraan manaafic iyagoo ay u sugnaatay oo adduunya aakhira ku tacaluqa, rabbina subxaanahu wa tacaala ay weyneeyaan oy xusaan. marka maalmaha markaa waxay ku cadaynaysaa qiimaha iyo sharafka iyo wanaagga ay leeyihiin. qofka muslimkana looga baahan yahay in uu wanaagga iyo khayrka uu raadiyo. xadiid imaam muslim uu soo saaray cabdullaahi ibni cabaas, waxauu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka werinayaa inuu suubana calayhi salaatu wasalaam uu yihi maa min ayaamin
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله يعني هذه العشر، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام maalmo ma jirto oo qofka mu'minka camal saalixa uu la yimaado oo ka fadli badan maalmaha kan. markaasaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi walaljihaadu fii sabiili illaah, xataa qof wadada ilaahay ku dagaalamaya liiclaa'i kalimati illaahi caza wajal u dhaqaaqay miyay ka fadli badan tahay maalmaha daacada iyo wanaagga la sameeyo? markaasuu nabi calayi salaatu wasalaam wuxuu yihi haa, ilaa qof rajulun kharaja bimaalihi wa nafsihi walam yarjic min dalika bishay, oo kama qaala nabiyuna calayhi salaatu wasalaam. qof baxay oo xoolihiisii iyo naftiisii waayey oon waxba la soo noqon mooye, qofkii soo noqoda waxa weeye waxaa ka qiimo badan, ama camalka la sameeyo ayaa ka qiimo badan maalmaha 10 ee bisha dilxija qofka mu'minkaa uu sameynayo. marka dilxija maalintay ka u dhalato ilaa maalinta 9aad laga gaaro oo la soomay sidaan sheegi doono, ilaa maalinta waxay tusinaysaa fadliga iyo 10 maalmood ee maalinta 10aad oo dadku maxaan lahaa ciid ay ciidayaan, waxay tusinaysaa fadliga iyo wanaaga iyo khayrka uu leeyahay. walidaalika nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka cabiray ma min ayaamin alcamalu الصaalixu fiihinna, maalmo ma jiraan oo camalka saalixa qofka mu'minka uu la yimaado oo markaa maalmahaasi ay yihiin kuwa ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa looga jeclaan badan yahay min hadihi alayaam. marka camal saalix ahlul waxay yidhahdeen maxaa loola jeedaa? camal walba oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku sheegay amba suubana calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa uu ku sheegay ayaa camal saalixa loola jeedaa. camalka saalixa waxaa ugu horeeya kalimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allahu ah. camalka saalixa waxaa ka mid a nabigeena calayhi salaatu wasalaam wadadiisii la raaco. camalka saalixa waxaa ka mid a salaadiyoo la dukado. camalka saalixa waxaa ka mid a soonkioo la sooman. camalka saalixa waxaa ka mid a zakadii iyo sadaqadii oo la bixiyo. camalka saalixa waxaa ka mid a beytka ilaahay loo xajiyo. camalka saalixa waxaa ka mid a masaakiinta oo wax la taro. camalka saalixa waxaa ka mid a waalidkoo loo baari falo. camalka saalixa waxaa ka mid a jiiraankoo la dhowro. camalka saalixa waxaa ka mid a qaraabadii eelkii oo la xiriiriyo. camalka saalixa waxaa ka mid a wax walbo ilaahay subxaanahu watacaala ummadiisa ugu yeeray, adoomankiisa ugu yeeray, subana calayhi salaatu wasalaam ummadiisa ugu yeeray waa camal saalixa. marka qofka muuminkaa marka waxaa kamid camal saalix kitaabka ilaahay qur-aanka oo la akhriyo, waxaa kamid salaatuleyl oo qofku uu dukado, waxaa kamid soon qofku uu soomo. marka maalmaha 10 qofku waxaa laga yaabaa ilaahay inuu fududeeyo inuu 10 maalmood ama 9 maalmood ee ugu horeysa uu soomo, ilaa maalinta ciida la soomi maaye. qofba waxaa laga yaabaa inuu ilaahay u fududeydiyo inuu maxaa lahaayay salaad fara badan habeenkii iyo maalintiiba uu dukado oo sunnooyina. qofba waxaa laga yaabaa inuu ilaahay u sahlo inuu sadaqada iyo khayrka uu bixiyo. qofba waxaa laga yaabaa inuu ilaahay u sahlo inuu ummadda wanaagana u sheego, xumaatidana uga digo. qofba waxaa laga yaabaa inuu ilaahay u sahlo inuu dadka dhexdooda islaaxiyo wanaag uu sameeyo. marka intaasoo dhanba oo camal saalixa qofka muuminka la yimaada maalmahaasi waxa weeye maalmo aad iyo aad u qiimo badan. qof baa laga yaabaa inuu ilaahay u fududeeyo xuska iyo dikriga ilaahay subxaanahu watacaala oo lisaankiisa suban calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maxaan lahay ha dhimanin inaad dhimato qofku maxaa lahay walisaanuka radun min dikri illaahi caza wajal, lisaankaaga iyadoo uu ka qoyan yahay dikriga ilaahay subxaanahu watacaala. walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa marka inuu ummadiisa uu ku baraarujinayo, ummadiisa uu u sheegayo ee la leeyahay ummad yahay waxa qiimo iyo wanaag aad ku leedahay markaad ilaahay ku xiran tahay. oo weliba mawaasimta ahlucilmigu waxay oran jireen qofka muuminka caaqilka waxa weyaan qofka mawaasimta khayrka markuu yimaado daacada u degdega, isagoo mar walba daaca u degdegayay, haddana marka mawaasimul khayrka iyo khayrka uu yimaado qofka muuminka waa degdegaya. ilahay waata uuna leeyahy wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu walardu uciddat lilmuttaqiin. ahlucilmigu waxay yihahdeen wax walba oo qofku ibni aadamka uu qabanayo waxaa fiican inuu sugto, inuu u korto, inuu maxaa lahay uusan ku degdegin ilaa shay mooye. kaas waxa weeyaan daacat allahi caza wajal, daacada ilahay in loo degdego oon loo cararo oon loo istaagin ayaa qofka muuminka loo baahaya. wixii intaa kasoo horay qofku waa inuu kaadsiimo iyo maxaa lahaa iyo deganaan iyo sugnaansho iyo xubsasho uu la yimaadaa, haddii kale waxbaa ka halaabaya. laakiin daacada ilaahay subxaanahu watacaala qofkii u degdega adduunya iyo aakhira waxba ka halaabi maayaan. walidaalika marka haddii sidaa arrinka uu yahay qofka muuminka maxaan lahaay
nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiis fara badan oo ku tacalluqa noocaasi oo maalmahaas qiimaha iyo wanaagga uu leeyahay khayrka uu leeyahay ayaa subana calayhi salaatu wasalaam laga warinaya markaa subana calayhi salaatu wasalaam walidaalika ahlu cilmiga iyo dadkii khiyaarta iyo dadkii saalixiinta marka maalmaha kale la soo galo oo dilxijo ay timaado 10 maalmood ugu horeeya waxaa la daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay aad iyo aad u badin jireen waliba ذكر إلهي سبحانه وتعالى حسك إلهي سبحانه وتعالى لسانك دائما وابدا إلهي يكون هذا عليان إلهي أي محل الله النزهان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلة إجا إنت أبدا أي قفتك المؤمنين أي سمينيا مركا وحا لغرب دمانتين إنا كدين نبينا عليه الصلاة والسلام inaan ku dayo dadkii saalixiinta aan ku dayano inaan wanaagaasi aan samayno oo aan ku dadaalo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmaha uu gaarsiiyo oo maxaa la ilaahay uu awood u siiyo marka qofka muuminka marka uu sidaa uu yeelo adduunyo iyo aakhira waxa weeyaan waa uu liibaanaya marka maalmaha kan qofka muuminka daacada ilaahay uu badinayo haddana dhinacay kaleeto wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xarimay wixii loo diiday qofka muuminka waxa weeyaan mar walba waxa weeyaan waa uu ka dheeraanaya waxa nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sunneeyay in maxaa la maalinta carafa waxa weeyaan maalin aad iyo aad u qiimo badan oo xujaydu ilaa waxa maalinta 8aad ay dadku xujayda ma inay tagayaan markay miro tagaan waxay dukanayaan salaada duhur oo qasriya la gaabiyay salaada al-asr oo la gaabiyay 2 rakacadood salaada al-maghrib iyaga gaabsan cisho 2 rakacadood salaad subax bay ku dukanayaan kadibna subaxii markay dukadaan waxay u dhaqaaqayaan xagga carafaad عرفوا مرك لجارو وقوف وحب بالله بعد الزوال ظهر ولا أذامية ظهر ولا قيمية ظهر ولا بركة عودة دكانية حضر ولا قيمية عصر ولا ركعة دكانية كدي ونطقوا دقاقيا عرفات أي استاغيا مرك قف هذو حيدان عرفوا وكجرو وحويان وقوف كيسي وأنصحيا إنه بورصة تقاه العلوم وحواجب ما هن مرك ما أنت عرف مرك حين وما الأذي هذا قيمة بدن نبينا عليه الصلاة والسلام دعاء سؤاليه وحوري دعوذك أغفض بدن أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحوري وحا قيمة بدن أنا أيام بيدي يقول سيكوها اللين وحوي وتوحيد الله عز وجل اللوينيه وحين ما لنتاسي إلهي سبحانه وتعالى دومكس دنبي سيودافيا ما لنتاسي إلى السماء الدنيا أي ربي سبحانه وتعالى أسود دقيا نزولا يليق بجلاله وعظمة الله عز وجل ومالين shaydaanku uu maxaa la u fool xumaanayo waa maalin shaydaanku ay aad ugu adag tahay sababtoo ah wuxuu markuu arko raxmaadka ilaahay naxariista ilaahay dambi dhaafka alle oo doomanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay carafo taaqan kusoo dagaandagaysa oo kusoo degaysa ayuu madaxiisa carro iyo dhoobo ka buuxinaya isagoo qaylinaya oo cabaadaya oo leh dadkaan sanada baabi'inayay sahalaagayay wadada xunta aan marsiinayay dalaalada aan ku waday dunuubtoodii daqaa'iq iyo maxaan lahay dhexdooda ayaa lagu dhaafaya marka waxa weeyaan waa maalin ilaahay uu leeyahay malaa'igtiisa uu ku leeyahay fiiriya addoomankayga wanaaga iyo maxay dooneen marka ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda ugu dhaafayo marka ilaahay kuwa dembigooda dhaafaya ee markay carafo taagan yihiin iyo kuwa muuminiinta oo banaanka jooga oo aan tagin dembigooda kuwa la dhaafayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu daro walidaalika maalintaasi qiimaha badan leh oo dunuubta sidaa loo dhaafayo oo addoomanka naarta laga xoreynayo oo muslimiintu gacmooda ilaahay u taageynayaan oo wax kala sareeya ayan jirin dadkoo dhan laba go ay wataan oo cid ka sareysa ayan jirin qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan u qadarin inuu meeshaa tago subana calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sunneeyey in maalintaa la soomo xadiis saxiixa umulmuminiina caaisha radi allahu canha wa ardaha waxay nabigeena calayhi salatu wasalaam ka warinaysaa subana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ninkii maalinta carafo soomaa ilaahay wuxuu dembigiisa ku dhaafaa السنة الماضية والسنة المحل الله قابلة سندي تكتي هي تنصور صحتها دنبيجي سلقوا دافيا سبحان الله ولذلك هلو الوحيدين قفك حاجة أسوي حول بو كجرا لب بو كجرا لو ما صنعينين لكن دتك آفاق ذا الجوجا أنقوا كلاتها يعني سورو بين جاران يا إلهي كرامي سبحان عليه السلام كرامي إن مالنتها صومان إلهي دنبيجي صلت كي تجي يكن صوص على الله دافع حلقة بقف في السويدية هذا kii tagay waaba la gartay oo anugu dunuub waa iga dhaceen ibn aadam baan ahay kan waxaan dhicin see aanan ku dhicin see liigu dhaafaya waxaa loola jeedaa haddii qofku xataa dembi uu galo sanad soo socda ilaahay towbadiisii waa aqbalaya
ama waxaa la yidhi qofka waxaa la waafajinayaa khayrka oo xumaatiyana waa laga ilaalinaya, ilaahay baa dhowraya. marka waxa weeyaan xumaatiyo dhan waa ka fogaanay, waxay doonto ha noqote. annagu dad muuminiin baa nahay, dad ilaahay rumeeyey baa nahay, suban calayhi salaatu wasalaam raacay wixii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan cala alcayni warasi, madaxa iyo indhaha ay naga saaran yihiin. waan ogolaanaynaa qofka muuminkana waxa weeyaan hadduu niyada wanaajiyo oo mutaabacada nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu wanaajiyo oo waxa uu rumeeyo, ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu doono waa u yeelaya. marka maalmahaasi qiimaha badan leh waxaa la suneeyey qofku inuu dikriga ilahay sidaan sheegnay uu aada u badbadiyo. waxaa kaleetoo la suneeyey oo subana calayhi salaatu wasalaam qofka muminka ee ilaahay waxsiiyey inuu udxiyo uu sameeyo, macnaa neef uu qaro. haddii uu hal guri yahay hal neef ari baa ku filan. 7 qof waxay ku shirkoobi karaan neef geela, 7 qof waxay ku shirkoobi karaan waxaa neef lo-a. haddii ilaahay isaga xoolo uu siiyo oo maxaa neef geela qalo ama neef maxaa lo-a uu qalo, dee fadlu min allahi caza wajalla yuutii man yashaa. walidaalika waa sunnadii nabiyllahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay subxaana watacaala uu leeyay wafadaynaahu bidibxin cadiimin. nabiyllahi ibraahim markuu ilaahay u amray inuu wiilkiisa uu goro, wiilkiina uu ogolaaday, ilaahay subxaana watacaala orgiga qiimaha badan leh ayuu maxaa ismaaciil uu ku furtay. walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam udxiyada waa gowracay, weliba 2 neef oo idaa oo aada iyo aada u qurux badan oo aada u cayilan buu subana calayhi salaatu wasalaam uu gowracay. kii hore markuu gowracay wuxuu yihi ilaahay kan waxa weeya muxamed iyo aalu muxamed, macnaa reerka nabi maxamed alayhi salaam reerkiisa iyo isaga ayaa ka gowracay. kii labaad subana calayhi salaam markuu gowracayna wuxuu yihi ilaahay neefkan waxaan ka gowracay ummadayda kuwooda fuqarada, kuwooda aan heli karin ayaan ka gowracay buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy. walidaalika ahlucilm badan waxay ka qaateen in qofkii wax heli kara ay waajib ay ku tahay inuu maxaa la udxiyo uu sameeyo. qaarna ay leeyihin maya waa sunna mu-akada wey. laakiin qofka muuminka inuu nicmada ilaahay maxaa la uu ku shukriyo waa laga maarmaan. ilahayna waa tii salaam fasalli lirabbika wanxar, ilahay fasalli lirabbika wanxar, ilahay daraadii u duko, xoolana gowrac. qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi alcaalamiin. maxaa la qofku daacadiisa maxaa la gowriciisa xajkiisa iyo cimradiisa kulli waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ayay u sugnaatay. marka qofku marka waxa weeyaan haddii nicmada ilaahay uu ku siiyey inaad marka neef arya oon ceeb lahayn oon weyd ahayn oo aan maxaa lahay aan xibnihiisu ay wada kaamil yihiin, oon gees ka go-onayn, oon dib ka go-onayn, oo maxaa la xibnihiisu ay kaamil yihiin, haddana caafimaad qaba oo aan xanuunsanayn, haddana aan weyd ahayn oo maxaa la cayilan, qof haddii uu gowraco waxay miisaankiisa xanaaska ilaahay maalinta qiyaama uu ugu badinaya. walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo suneeyey qofkii haddii hilaalu ramadaan hilaalu dilxija ayaa carafa ayaa bishii dilxija ayaa ula jeedaay, qofkii arka ee raba inuu maxaa la udxiyo uu sameeyo inuusan tintiisana gooyin, cidiyihiisana uusan gooyin ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam noo suneeyey ilaa neefka uu gowraco. marka neefka ahlucilmigu waxay leeyihin waxaa la gowrici karaa ayaamu tashriiq dhammaanteed. maalinta ciidda waa la gowrici karaa, maalinta ku xigta waa la gowrici karaa, maalinta labaad waa lagu karaa, ilaa maalin saddexaad oo ayaamu tashriiq ah oo xujaydu mina ay jawaan dhamaysanayaan ilaa qoraxdu ay ka dhacdo waa la gowrici karaa. haddii qoraxdu dhacdo maalinta afraad waa dhammaad, macnaa saddexdaas afarta maalinta ciiddii 3 maalmood ku xigta xataa qofku udxiyadiisii waa uu gowrici karaa. marka haddii sida ay tahay marka waxaad arkaysaa wanaagga iyo fadliga iyo khayrka uu leeyahay. marka acmaashatan marka maalintan maxaa ayaamaha kan kadibna waxaa ku xiga ciidi, qofku ilaahay subxaanahu watacaala inuu farxo nicmada iyo gallada ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey, oo qofku maxaa lahay ilaahay ciidda uu gaarsiiyey awlaadiisa iyo ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo muslimiinta uu ka farxiyo, waa waxa aada iyo aada u qiimo badan. marka ikhwaani, naftayda waxaan kula dardaarmaya, walaalaha muslimiinta oo meel walba joogana kula dardaarmaya, ayaamaha kan qiimaha badan leh ee wanaaga badan leh haddii ilaahay subxaanahu watacaala uuna garansiiyey, rabbi subxaanahu watacaala uuna gaarsiiyey in aan maxaa laha aan ku dadaalno inaan daacada ilaahay subxaanahu watacaala aan samayno, inaan ku dadaalno inaan maxaa laha khayrka aan u horumarno, inaan ku dadaalno in wax fiican aan samayno, inaan ku dadaalno inaan wixii xumaatiya aan ka dheeraano, inaan ilaahay subxaanahu watacaala la heshiino, inaan dadka muslimiinta u naxariisano, inaan maxaa lahaye wanaagga aan faafino, xumaatidana aan ka dheeraano. haddii sida aan yeelno biidni illaahi caza wajal adduunyana waa liibaanaynaa, aakhirana waa liibaanaynaa. ilaahay waxaan warsanaynaa adooma saalixiin naga dhigo, jidkiisa ilaahay inuu hanuuniyo. wajazaakum allahu khayran
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.